السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا كحران كنال كينا إشعيارها كسو دوادا موقال عصب وكترسن تحانيه يورو 2020 xubintan maanta waxaynu ku eegi doonaa kulanka caawa la balansan yahay 10 habeenimo ee geeska Afrika kaas oo dhex mari doona xulalka Spain iyo Sweden. xulka qaranka Spain waxa uu rabaa inuu caawa sida ugu wanaagsan ku bilowdo koobkan oo 3 jeer ku guuleystay markay caawa 10 habeenimo ee geeska Afrika foodeystaan xulka Sweden. La Roja ayaa ku raajooga ku guuleysiga koobkooda afraad ee Euro ah kaasi oo ka dhigi doona kan ugu guuleysiga badan koobabkani. dhanka kale xulka Sweden ayaa raba inuu isku dayo ka gudbida wareegga guruubyada markii ugu horeysay tan iyo tartankii la qabtay 2004 markaasi oo ay gaareen wareegga rubuc dhamaadka. u diyaargarowga xulka Spain ee xagaagan ayaa ahaa mid wanaag ka fog. kabtankoodii Sergio Busquets iyo daafaca Diego Llorente ayaa labadaba waxa laga helay xanuunka coronavirus. xulka uu tababaro Luis Enrique ayaa kulamadii saaxiibtinimo ee ka horeeyay koobkani tii hore eber la galay xulka Portugiiska halka kii ay la lahaayeen xulka Lithuania ay ku khasbanaadeen inay safaan xulkooda ka yar 20 sababtoo ah xulkii koowaad ayaa la karantiineeyay. si kastaba xaalku ahaadee xulka ka yar 20 ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed fiican ciyaartii ay la lahaayeen xulka Lithuania kadib markii ay 4 gool iyo waxba kaga adkaadeen. guushan ayaa u sii dheereysay 8 ciyaarood silsilada guuldaro la'aanta ee xulka Spain. La Roja ayaa ku guuleystay koobkan 3 jeer oo hore iyagoona la siman Jarmalka oo isna 3 koob leh. haddase waxa ay ku raajoogaan inay meesha ugu sarreysa ku galiyeystaan kadib guushoodii koobkan ee 2012 Spain waxa ay gashay xilli aan wanaagsanayn koobkii adduunka ee 2014 waxa ay ku hadheen wareegga guruubyada halka koobkii Euro ee la qabtay 2016 iyo koobkii adduunka ee 2018 ay labadaba ku hadheen wareegga 16 xaalku si kastaba ha ahaadee sinaba looma yaraysan karo xulkani waliba marka la joogo marxaladani koowaad ee tartanka. xulkani waxa uu isha si buuxda ugu hayaa bilow wanaagsan oo habeenka caawa ah guul kaga gaadhan xulka Sweden. dhanka kale Sweden sida aynu hore u soo xusnaba waxay khibrad u leeyihiin u gudbida wareegyada dambe ee koobka qaaradda Yurub. waxay 1992 gaadheen semifinalka halka 2004 ay gaadheen wareegga rubuc dhamaadka. Sweden waxay sidoo kale u soo baxeen koobkan dhammaan 6 jeer ee u dambeysay balse 3 tartan ee u dambeysay waxa lagu reebay wareegga koowaad waxaana doorkan ka go'an in ay meeshaasi meel ka fog gaadhaan. Group E ayaa ah mid xiisihiisa wata iyagoo labadan xul ay gruupka ku weheliyaan Poland iyo Slovakia. tan ayaa keenaysa in ay ka cabsadaan xulka Sweden natiijo xumo kulankooda ugu horeeya ee caawa dhacaya. Sweden oo hadda 5 ciyaarood ee u dambeysay guuleysatay ayaa la filayaa inay kalsooni ku soo galaan ciyaarta. tababaraha xulkan ee Jan Anderson ayaa kulanka ka hor yiri sidan waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee caalamka kubadda cagta. gabagabadii iyo gunaanadkii si kastaba xaalku ahaadee xulka jaalayaasha ayaa dhab ahaantii haysta xidigo ciyaarta caawa Spain oo ku jirta marxalad kala guur uga dhigi kara mid aan nasasho lahayn. asxaabta nagu xiranow xubintan kooban ee aanu ku eeganay hordhaca ama falanqaynta kulanka caawa loo balansan yahay ee dhex mari doona xulalka Sweden iyo Spain intan ay ku eegyahay fadan haylaawin haddii muuqaalku caajibiyo inaad like saartid sidoo kalena aad la wadaagtay asxaabtaada ugu dambeynna haddii aadan hore u saarin subscribe gambaleelkeeda wata saartid kanaalkan oo anigoo idin leh waana iyo muuqaalkan kan xiga. wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.